maalintii shalayta ahayd xildhibaan Naasir Cali Shire oo ka mid ah golaha wakiilada Somaliland ayaa telefishinka Sahan u sheegay in isaga iyo xubno kale oo siyaasiyiin Somaliland ay tagi doonaan magaalada Kismaayo oo ay kaga qayb galayaan calaamasaarka madaxweynaha Jubbaland. haddaba xildhibaan Maxamed Axmed Dakool oo isna ka mid ah golaha wakiilada Somaliland oo la hadlay telefishinka Sahan ayaa warka xildhibaankaasi ka hor imid. waxaan maqlay rag xildhibaan ah oo la Kismaayaanu aadana in Cali Shire Naasir waxaan leeyahay Naasirow ceelaf weyn iyo ceelgaaba kaaga baahan inaad nimadeynteeda aado Kismaayo saddex nin oo ilmaadeera ba ku legdamaya saddex nin oo ilmaadeera oo qabiil la niman daarooda qoys ahaan niman Kismaaya oo isku filayeen adigu adeer ku filow meesha la yiraahdo ceelgaaba iyo ceelaf waxa ka taagan taasa ciidan kaaga baahan. way xildhibaan Naasir Cali Shire maanta wuxuu sheegay in ay Kismaayo tagayaan ujeedka ay arinta u sheegeen wuxuu ku sababeeyay in ay tahay maadaama dawladda Soomaaliya oo asal hadalka u dhigay ay dhibaato ku hayso Somaliland in ay iyaguna maamul goboleedyadii farageliyaan marka halkaas oo kale miyaanay sax ahayn ama iyagu haysayeen dhexdooda ama cid kale haysayeen inaynu dhex tagno ku milanno ma aha legally hadduu bari Kismaayo tago maxaana ii diiday inaan garow tago taas sax maaha. qodobka labaad kalena Somaliland iyo Soomaaliya waxba ka dhaxeeya Soomaaliyadu wax ina ka dhaxaysa Kismaayo ka mid tahay inaynu ku dhex milano mar baynu qolo raacanaana maaha wax sax. waxaan leeyahay Soomaaliya ushuumaheeda iyaga leh aan ka nabad galno waliba si dabicsan ninka siyaasiga ah ama madaxweynaha ha noqdo ama xildhibaanada ha noqdo ama wasiirada ha noqdo inaynu message wanaagsan diro mooyaane message isku diro dabayna dirin dadnimo maaha. dhinaca kale xildhibaan Dakool ayaa eeda ka difaacay dawladda Djibouti. Ismaaciil Wargeele wuxuu ahaa jabadii SNM ragii isaga iyo qoyskiisuba ay dagaalka kula jireen. wuxuu ahaa markii dawladdii Soomaaliya dhacday dadkii reer Somaliland ganacsatada ahaa ninka ay ku baxsadeen markii baananku aamini waayeen iyagu baanankoodii 20 milyan ee dollar intay dileen ganacsatadii reer Somaliland waliba reer Hargeysa ganacsigoodii meel mariyay. waxaad moodaa kuwa hadda hadlaya mala inaanay taariikhda aad ugu warhayn waxa uu canayd ragii taariikhda xogogaalka u ahaa ilaa jabhadii ilaa burburkii ummadda Soomaaliyeed ilaa nabadeyntii Somaliland inay wareystaan. waxa ay warramay oo si xogogaalnimo ay ugu warramay Abiib Diiriye Timcad ilaahay khayr ha siiyo oo xogogaal u ahaa wuxuu igu yiri hal hays ah haddii aan Ismaaciil Cumar Geele noo kicinin nabadeyntii iyo horumarkii ka bilaabmay Somaliland bis ma yeesheen miyaan kuwa xogogaal ahayn talow ma xogogaal maaha. waxaan leeyahay ma mudna marwadiisuna ma mudna Khadra Maxamuud inta qof ganacsato oo reer Hargeysa ay ganacsigiisa iyo mustaqbalkiisa ay meel marisay miyaanay qorayn Ismaaciil Cumar Geele iyo qabiilkiisu inay jabadii SNM ka barbar dagaalamayeen miyaanay qorayn. waxaan leeyahay ma mudna waa aflagaado madaxweynaha waanu ka raali gelinayna waa madaxweyne la doortay ma mudna in la caayo markeedu horeba madaxweyne la doortay ama isaga ha ahaato ama farmaajo ha ahaato ama Muuse Biixi ha ahaato nin ummadani ay dooratay oo mas'uul in la caayo ra'yi waa laga duwanaan karaa laakiin in ay u la safriyo ma wacna. Badri Koosar Maxamuud telefishinka Sahan Hargeysa.